insha Allah casharkeena maanta waxa si faahfaahsan ugu sharxeynaa xanuunka gaaska gaar ahaan gaas calooleedka waxay bulshadeen u taqaano kaas oo boog ama nabar ku sababo caloosha iyo mandhiciraha ugu dambeynna keeni kara dhiigbax gudaha ah dulduleelada ku sameysma caloosha iyo mandhiciraha iyo inay xirmaan isku socodka dheefshiidka sida caloosha iyo mandhiciraha ama caloosha qaybteeda dambe ugu dambeynna qofka haddii uu iska daaweyn xanuunkan ku sababi kara kansar ku dhaca mandhiciraha ama caloosha sida hortiina waa ka arkaysaan waxaan si faahfaahsan u sharxi doonaa gaas calooleedku waxa uu yahay waxa sababo calaamadaha gaarka lagu garto sida loo kala saaro marka boogta ay ku taala caloosha iyo marka ay ku taala mandhiciraha qaybta hore calaamadaha qofku uu kala garan karo يعني halka يعني dhibaatada ay ka jirto iyo sida loo daaweeyo dhammaan waa sharxi doonaa insha Allah ka faa'iideyso aan la wadaag asxaabtaada si kula faa'iideystaan magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq soo dhawaada mar kale gaaska si guud marka laga hadlaayo waa maaragtay waa eray bixin bulshadeena ay isticmaalaan asalka ciladana waxa ay ka timaadaa marka soo deynta aashitada laga soo deynayo caloosha ee xadkeeda dhaaftay ama xadiga la soo deynayo ha noqoto ama qaabka loo soo deynayo ha noqoto oo sida caadiga aashitada waxa loogu talagalay cuntada inay burburiso oo yani burburinta cuntada ay ka qayb qaadato marka haddii xadigeeda ay dhaafto ama xanuunada qaar ay yimaadaan waxa dhacayo in aashitadii badneed ay dhaawacdo xuubkan caloosha sida hortiina ka arkaysaan xuubkan marka caloosha ku dahaaran يعني waa midka ilaaliya caloosh dheefshiidka ilaaliya oo gaaska caadiga cuntada lagu burburiyo sida caadiga ma dhaawac caloosh balse xadigiisa haddii ma aragtay oo dhaafo ama oo ka bato aad u bato ayuu dhaawac keenaa marka waxyaabaha keeni kara in xadigiisa uu ka bato waxaa ka mid ah sida qofka marka uu saameeyo ama jeermiskan Helicobacter pylori ama H pylori loo yaqaano oo ah waxa ugu badan ee keena gaas calooleedka yani bakteeriyadan marka ay jirto yani dhibaatadaas waa ay timaado sidoo kale qofka hadduu isticmaalo daawooyinka xanuun baabi'a haddaa si aad u isticmaasho sida aspirin oo kale sida ibuprofen oo kale sida naproxen oo kale sida diclofenac kinigan laha oo kale daawooyinka xanuun baabi'aha dadka aad ku isticmaala ayadana boog calooleedkan waa ay timaadaa stresska sidoo kale boog caloleed qofka inuu ku timaado oo ka qayb qaataa marka sida doontaba ha ku timaado yani qofka boog calooleedkan markuu caloosha ku sameysmo saarkaysaan yani caloosha uu ku sameysmi karaa ama mandhiciraha uu ku sameysmi karaa aashtadana sababta keenayso aashtada inay badato ama dhibaatada ay geysatana yani waxa ugu badan ee sabab waxa waaye bakteeriyadan oo H pylori loo yaqaano iyo daawooyinkan qofka oo xanuun baabi'yaasha aad u isticmaalo marka si guud qofka marka dhaawaca ama boogta ay ku taala caloosha cuntada ayaa u daran qofka oo ma aragtay cunto haddii uu cuno xanuunka ayaa ku ziyaada balse markay boogta ay ka jirto mandhiciraha qofka yani cunto markuu cuno waa uu nafisa marka haddii aad isku aragto in markaa cunto yani xanuun badan aad dareemayso caloosha markaas waxay u badan tahay gastric ulcer waxa la inuu jiro yani boog calooleedka yani boogtina caloosha ka jirto balse haddii markaa cunto yani aan nafis dareemayso oo baahida ay ku daranto markaa baahdaada yani ula xanuunsanayso markaas ma aragtay boogta waxay u badantay inay ka jirto mandhiciraha waxaan lagu ogaadaa cameradan caloosha lagu fiiriyo ama endoscopy waxaan loo yaqaan tubadan qof markii la geliyo ayaa lagu ogaadaa boogaha intay leeyihiin iyo meelaha ay ka jiraan saas lagu ogaadaa balse si guud qofku uu ku dareemi karaa baahida haday ku dhabayso mandhiciraha iyo gaaskaada ka jira ama boogta ka jirta haddii direct ay ku dhabayso markaa cunto ma aragtay ku xanuunsanaysana markaas caloosha ay boogta ka jirta sidoo kale qofka markuu gaas calooleedkan qabo calaamado kale ayaa u soo raaco ay kamid tahay bog xanuun bog inuu olol ama xanuun oo ka dareemo halkan meesha xariiqan saarayo ama caloosha si guud qofka inuu xanuun ka dareemo dadka qaar dibiriya u soo raacdo dadka qaar xanuunkan oo bogga caloosha ka dareema laba u soo raaca dadka qaar ilaa heer waxay gaaraan ay matagaan dadka qaar mataga dhiig ayaa u soo raaca sidoo kale saxaradana ma aragtay dhiig ayaa u soo raaco saxarada madow ayay noqotaa matagana dhiig ayaa u soo raaco oo yani qofka markuu xanuun bog ka qabto waa uu matagaa inuu labooda kadib dhiig ayaa matagay waa uu nafisayo wax lamid ayuu ku leeyahay qofka yani ma aragto xanuunkan qabo marka calaamadaas ayaa ugu caansan dadka qaar waxa u soo raaco yani waxay ku sheegayaan markuu xanuunka haayo oo calaamadaha aan soo sheegnay qaar kamid ah isku arkaan wuxuu ku dhahaa yani
markaan socdo inaan dhacayo oo kale ayaan dareemaa yani madax dhan ayaa i gurguurayo wareer ayaan dareemaa sida qof yani istaag ka dhici rabo oo kale ah saas camal inay tahaan dareemaa dadka qaar walwal iyo wax lamid ah usoo raaca fara badan iyo wadna garaaca yani qofba calaamada ayaa usoo raaca dadka qaar tabardarra iyo maaragtay jirgo iyo wax lamid ah usoo raaco marka qofba maaragtay inta badan bulshada lagu kala duwan yahay inta badan marka gaaska markuu jiro oo qofka calaamada wax lamid ah inta badan markuu xarun caafimaad booqdo waxa koowaad oo la fiiriyo waxa waaye dhiigga ama saxarada oo waxaa laga fiiriyaa waxa ugu badan ee sababa boog calooleedkan oo ah bakteeriyadan H pylori marka haddii laga waayo bakteeriyadan dhiiggiisa iyo saxaradiisa macnaheeda ma ahan qofkan inuu xanuunkii qabin sababta waxyaabo badan ayaa sababa ama ka qayb qaata yani boogta inay jirto marka sidoo kale qofku waxaa la weydiiyaa su-aale ay ka mid yihiin ma isticmaashaa daawooyin xanuun baabiya in muddo ama isticmaalaysa bilii ugu dambeeyay wax lamid ah ma isticmaali jirta daawooyinka xanuun baabiya wax lamid ah stress fara badan iyo xaalado xasaas ah ma jiraan in la weydiiyo waxaa kaloo qofka la sameeyaa maaragta haddii uu yani xanuun badan oo caloosh ka sheeganayo tubada waa la geliyaa oo waa la fiiriyaa dhaawac maa jira boog maa jirto wax lamid ah boogta intay la eg tahay dhaawacyo badan mee caloosha mandheeraha u geysta ma calooshay ku taalaa mise mandheeraha dulduleelo badan maa jiro yani waxyaabahaas oo dhan waa la arki karaa waa la fiiriyaa marka dhakhtarka haddii uu rabo yani inuu sii xaqiijiyo suu qofka dabcan maadaama uu xanuunsan yahay yani haddii la dhaho gaas ma qabta calooshaada waa kaa baarnin gaas ma qabtid macnaha jawaabtaas ma ahan jawaab sax ah qofka calaamadihii waa ay ka muuqdaan marka ma aragtay in oo aada loo baaro oo xaaladiisa aada loola socdo oo wax kastoo ma aragtay lagu ogaan karo yani dhibka ka jira caloosha ayaa wanaagsan marka haddii qofka saxarada ama dhiig marka laga baaro la ogaado bakteeriyadan H pylori inay jirto markaasoo kale kaniiniyal qalajiyaala la siiyaa iyo daawooyin kale gaas ku jiro oo daawadan triple therapy-ga ama saddex leyda ah ayaa la siiyaa qofka subaxina saddex baa la siiyaa habeenkiina saddex baa la siiyaa muddo 2 isbuuc ayuu saas ku wadaa markuu dhammeeyo kadibna baaritaan ayaa qofka loo sameeyaa baaritaankaasa marka maaragtay lagu ogaada haddii xanuunka uu ka baxay haddii uusan ka bixin haddii uusan ka bixin weli jeermiska oo jiro micnaheedu waxay tahay jeermiska daawada iska caabinayo ku sameynaa qofka laakiin dhakhtarka inuu weydiiyo waa inuu daawada si sax u qaatay oo kala jarjarin inuu maaragtay oo daawada qayb ka tagay ama maalmaha qaar hilmaami jiray wax lamid ah haddii marka uu bukaanku uu kuu sheegay in daawada uu isticmaali jiray si sax u isticmaali jiray maalina uusan ka tagin welina jeermiska oo jiro positive iyo baaritaanka lagu celiyo waxaa la sameeyaa quarter therapy waxaa la siiyaa daawo afrey ayaa la siiyaa qofka waa la fiiriyaa yani daawo afrey ayaa la siiyaa balse qofka markii oo baaritaanka lagu celiyay hadduu negative noqdo oo yani cudurka qabin dhakhtarka inta badan wuxuu siiyaa daawooyinkan BPI-ga ama proton pump inhibitor sida omeprazolka lansoprazolka dexlansoprazole esomeprazole pantoprazole rabeprazole daawooyinka hortiina ku qoran mid ka mid ayaa la siiyaa midkaas ka midka marka muddo 4 isbuuc ama 8 isbuuc wada la dhahaa sababtan waxay tahay qofka maadaama jeermiska laga saaray daawooyinkan aashtada yareynayaan oo qof iska wada lahaa cuntadan iska saxa la waxa dufinka farax badan la iska ilaali qudaartan aad u cunaa la sida qajaarkii kabajkii kuwaas ugu fiican salaas wax qofka soo kaco inuu caba ayaa wanaagsan yani marka boogtu way reysanay tartiibaya oo reysanay cuntooyinka culus iyo waxyaabahaas inuu iska ilaaliyo waa qofka habeenka oo cunayo wax lamid ah maalintii inuu iska ilaaliyo wax dufinka faraha badan leh inta boogta ay ka reysanayso tartiib hadduu jeermis ka baxay marka haddii qofka uusan isla tacaalin ama xanuunka uu ku wareero ama uu iska daayo maaragtay in xanuun baabiya ama kiniinkaas caadi uu iska qaato aashtada dhibaato badan ay sii geysan kartaa oo waxaa dhacayo sida hortiina ka arkaysaan yani qofka dhiig bax inuu yani ay ku keento xaaladii in maaragtay dulduleele ay ku sameysmaan calooshii mandheeraha sida hortiina ka arkaysaan perforation waxa la sameysmaan soo kale waxaa dhacaya blockage oo caloosh inay maaragtay qaybta baaloriga qaybtan dambe oo kale tusaale inay xirmato ama caloosh inay qayb ka mid ay xirmato ama mandheeraha qayb ka mid inay xirmaan ayaa dhacayso taasna waxay keentaa inta badan maaragtay in kala socodka cuntada iyo wixii dheefshiidka inay istaagaan ama qofku wax yar markuu cunaba yani qayb ka mid ah dee albaabka uu xirma yani wax yar markuu cunaba waxaa dhacaya inuu qofka dhergo yani maadaama dheefshiidka isku socodkiisa aad u hooseeyo marka wax yar markuu cuno inuu dhergo ayuu dareemayaa yani cunto badan uusan rabin marka ayadana waa dhibaato kale ka dhalato yani xirmitaankan dhib badan ayaa ka dhashto xitaa duleelka maaragta ka samaysmaya yani infection iyo waxyaaba ayaa ka dhashto oo halis ku ah yani qofka soo kale ugu dambeyn waxaa ka dhalan kara hadduu qofka isla tacaalin kansar ayaa ka dhashto gaar ahaan caloosha yani si hortiina yani ka arkaysaan
marka waa xaalad halis ah qofkan la rabo inuu isla tacaalo waxaa laga yaabaa qofku dhowr istaal inuu tago daawadan qaata ka tago midaan qaata ka taasna waa arrin kaloo dhibaato ah qofku waxaa la rabaa hal dhakhtar inuu ku xirnaado ilaa uu ka fiicnaanayo arrinka kaloo aadka muhiimka waxay tahay waxaa dhacda qofka markuu daawadan qaadanayo oo gaas calooleedka oo subax 3 la qaata habeenkii 3 la qaata ama afareyda hadduu qaadana oo kale subax 4 habeenka 4 daawooyinka noocaas yani haddii H pylori laga helo ama gaas calooleedka yani bacteria ay sababto waxaa dhaca qofki inuu aad ugu xanuunsado inta badan oo qofkii markuu ku xanuunsado inuu daawada iska firdhiyaba oo yani dhaho ma aragtay yani daawada halkii aan ugu bogsan lahaa ayaan ku xanuunsaday marka daawadan way dhib badan tahay dhakhtarka waxaa la rabaa qofka talooyin fara badan inuu u raaciyo daawooyinka markuu u qoraayo yani talooyin fara badan inuu siiyo cuntada xaggeeda lifestyle waxaan lahaa noloshiisa qofka wax laga bedelo talooyin fara badan la siiyo oo qofka dii daawada la iska sii kaliya يعني way adkaataa inuu sii wado oo matagiya ku siyaado labadiya ku siyaado bug xanuunka ku siyaado يعني dadka qaar ma aragta xitaa sariirta ay ka soo kici karin yani xanuunka ay ku qabanaysa daawada darteed marka waxa aad u dhib badan marka qofka doosa markaas dhakhtarka contact ama xiriir uusan ka haysanin oo la hadli karin way adkaataa ma aragta inuu daawada sii wado waxa laga yaabaa inuu iska firdhiyo kadibna istaal loo qaado xaalad emergency amal qofka yani faleemboyin wax lagu xiro yani loo sheego inuu يعني aad u xanuunsan yahay ama sidoo noqonaa marka daawada effectigeeda waa saameynteeda waa maadaama daawada laba maado oo qalajiye ay ku jiraan qalajiyahan waa waxa qofka xanuunka badan ku keenaya aashtada badan sii keenaya maadaama qalajiyaha yani hadafkiisa uu yahay inuu la dagaalo jeermiskii marka shaqo kale ayuu meesha ka qabsanaya si gaas ma yareeyo aashtada daawada saddexaad oo la socotaa yareyso marka dhib ma soo ka imaadaa ama bukaanka marka waxa dhacda bukaanka inuu daawada iska firdhiyo ama ka cararo iska joojiyo daawooyin iska yaro gaas oo cirbadna iska qaata farmashiyaasha wax lamid ah balse dhibaatooyinka culus ka dhalan karo marka inay fahanteen ayaa rajaynayaa wacyigelinta guud iyo sharaxaada cashirka wixii su'aalaha qabtaan qaybta falada ma commentiga ugu reeba. Assalaamu calaykum.